soo dhawaada daawadayaal wararka degdega aan idin haynana maanta kuwooda ugu waaweyn waxa kamid ah ciidamada geesiyaasha beesha Ciise ayaa dagaal culus waxa ay ku qaadeen maleeshiyaadka beesha Samaroon iyagoona la wareegay Sheeder hadaba dagaalka halkaasi ka dhacay maanta khasaare lixaad leh oo beelaha Gudbursi halkaasi lagu gaarsiiyay sidoo kale waxaan halkan idin kula wadaagi doonaa deegaano dhowr ah oo ay markaasi beesha Ciise ay gacanta ku sii dhigayaan ayaan rabaa inaan halkan kugu wadaago sidoo kale qodobada xiisaha leh halkan ku daawan doontaan aan halkan idin kugu faahfaahin doonana waxa kamid ah diyaaradaha dagaal ee dawladda Djibouti ayaa duqeyn culus waxay u geysteen ciidamo ka tirsan maamulka Soomaaliland hadaba sabab rasmiga loo duqeeyay ayaan rabaa inaan muuqaalkan kugu wadaago sidoo kale qodobada xiisaha leh halkan ku daawan doontaan waxa kamid ah hogaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen oo dhawaan maalmaha soo aadan uu rabo inuu qabsado doorasho xilli deegaanada maamulka Koonfur Galbeed xaalad dagaal oo ku jiro hadaba qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaan saaxiib yaal halkan idin kula wadaagaya soo dhawaada anigu waxaan ahay Abdiraxmaan Lisbon halkan aad iga daawanaysaan waa Macaash Media hadii ay tahay markuu ugu horreysay fadlan YouTube-ka subscribe dheh muuqaalkan aad daawanaysidna like garay siin share garay oo saaxiibadaada la wadaag mahadsanid daawad soo dhawaada hagaag aynu ku bilaawno wararka degdega ah hadii aan ku hormarana kabtay ma aragtay ayaa maanta ka dhacday magaalada lagu magacaabo Sheeder oo markaasi maamulka Guban State oo markaasi maamul ahaan ay u tahay oo la rabo in dhawaan la hirgeliyo maanta dagaal xoogan ayaa waxa markaasi ku dhaxmaray deegaanka ama markaasi ama aan raadin magaalada Sheeder ciidamo ka tirsan kuwa geesiyaasha beesha Ciise waliba sidoo kale maleeshiyaadka soo aruursaday ee Gudbursi iyagoona saakay ama maanta 10 fiican loo dhigay kadib markii deegaankii ama markaasi meeshii lagu dagaalamayay laga bursaday iyagoona ay markaasi muuqaalo hore isugu soo duween ay ku tilmaamayeen in ay iyagu ay haystaan halkaasi balse geesiyaasha beesha Ciise ayaa ku cibaadeystay oo gacan birana ay ku qabsadeen halkii ay ku faanayeen beelaha Gudbursi inay haystaan hore ayaan kuugu sheegay tan iyo bishii barakeysneed Ramadaan intii lagu gudu jiray waxaan kuu sheegay inaysan bisha Ramadaan intii lagu gudu jiro way kaliya ay haystaan beelaha Gudbursi mar hadii Ramadaan ku dhamaado in 10 fiican loo dhigay waana tii dhacday maanta dagaalkii halkaasi ka dhacay Sheeder 10 la miilaabaana ayaa looga dhigay deegaan markaasi halka la yiraahdo Samatariyana waxa ka socday dhaqdhaqaaqyo xoogan iyo abaabul iyadoona 10 la miilaabaana oo hadda markaasi la rajeynayo in deegaano kale hor leh sidaas loo qabsado beelaha Gudbursi iyo beesha Samaroon oo isku dhinaca balse geesiyaasha beesha Ciise maanta waa ay cibaadeysteen oo dagaalkii ay la galeen maleeshiyaadku waxa ay noqdeen kuwo guul ka gaara hadii aan fiiriyana ciidanka beesha Ciise ayaa dagaal culus ku qaaday ciidanka beesha Samaroon waxaana markaasi lagu soo waramayaa in dagaalkan ay markaasi ay kula wareegeen deegaanka Sheeder kadib markaasi iska horimaad xoogan oo sababay khasaare isugu jiro dhimasho iyo dhaawac wararka saakay laga helaya aaga Samatariyada ayaa sheegaya in wali ay rasaas culus markaasi la dhaafsanayo iyadoona ay goobtu ay isku markaasi isku horfadhiyeen labada dhinac balse dadka deegaanka ayaa xaqiijiyay in xaaladdu ay ka sii dareyso marba ka sii dambayso walow ay guul weyn laga gaaray maleeshiyaadka weerarka markaasi lagu qaaday beesha Samaroon iyagoona gacan bir ah lagu qabtay deegaanadii iyo goobihii ay ku sugnaayeen sidaas loogu wareegay xaaladda hadda waxa ay tahay mid degan maadaama geesiyaasha beesha Ciise ay goobta gacanta ay ku hayaan saakay ayay ahayd markii dhaqdhaqaaqyo xoogan laga dareemayay Samatariyada iyadoona ciidamada geesiyaasha beesha Ciisena duulaanka ay ku qaadeen kadib markii ay isku dayeen inay gaadmo weerar ah ay ku soo qaadaan beelaha Gudbursi soo abaabulayeen balse laakiin Ilastradon ay heleen geesiyaasha beesha Ciise ayaa mar qura ku baxay iyagoona ay goobtii ay ku abaabulayeen inay weerar ku soo qaadaan halkaasi jilbaha looga astay kadibna looga adkaaday Sheeder hadda waxa gacanta ku haya ciidamada geesiyaasha beesha Ciise kuwii Samaroon oo bisha Ramadaan halkaasi ku raaxaysanayeen dhigta ayaa dhiiga loo daray oo gabi ahaanba halkaasi ayaa laga saaray hadda se xaaladdu waa ay degan tahay inkastoo xaaladdu mar walba la filan karayo mid dagaal ay mar kale dib u qarxo
xilli ciidamada beesha ciise horay dhiirigelin iyo sabood badan loo muujiyey intii lagu gudiray bisha barakeysan Ramadaan afur wareedada loo sameeyay sidoo kalena lacago oo markaasi xaqul iida oo dadkooda iyo walaalahooda iyo familkooda ay kula ciidayeen ayaa loo qiibiyay sidoo kalena waxa markaasi hub kala duwan iyo dadka qurbo joogta ee ka soo jeedo beesha ciise ayaana garab istaag xoogan u muujiyay taasoo hadda ku muuqanayso guulihii maanta ay gaareen taasi ay tahay mid ifafaalo ah waxaan rajaynaynaa wixii warar soo kordhana daawadayaal si degdeg ah ayaan halkan idinkula wadaagi doonaa haddii ay baraale markaa laga helo dagaalka markan sidii u bilowday wayaan ugaaska beesha ciise hore ayuuba dagaal ugu dhawaaqay in dhigta dhiigga loo daro warar qaar ayaa sheegay in ugaaska wadahadallo uga socdo dhanka iyo Hargeysa balse laakiin waa wax ma jiraan oo hadda xaaladdu waxa ay noqotay mid faraha la iskula tago oo ciidamada beelaha Gadabursina guul weyn ayaa mar kale laga gaaray haddii aan fiiriyano wararka kalena dhinaca kale ila xog ogaala ayaana markaasi tilmaamaya in diyaaradaha dagaal ee dawladda Djibouti ay duqeymo xoogan ay ka geysteen dhinaca ciidamada Somaliland goobo ay ku sugnaayeen ciidamada Somaliland ayaa looga cabsi qabay inay qayb lixaad ay ka qaataan dagaalka hadda markaa u dhaxeeyo beelaha Gadabursi waliba soo kale beesha Samron iyadoona dawladda Djibouti ay diyaarado ay leedahayna ay soo kixtimeen iyagoona ay sheegeen haddii tallaabo ay qaadaan ciidamada beesha waa markaas ciidanka Somaliland haddii dagaalkaasi ay xabad ka ridaan in ay jawaabtooda ay noqon doonto in diyaaradaha dagaal ee dalka Djibouti ay duqeymo xoogan ay halkaasi uga geysanayaan balse hadda ciidamada Somaliland waxa ay markaasi ku dhumaalaysanayaan qayb ka mid ah gobolada Awdal iyo Shilil xilli ay xaaladdu ay kacsan tahay oo maanta isfar saareen maleeshiyaadka beelaha Gadabursi iyo beesha Samron oo isku dhinaca iyo waliba soo kale ciidamada geesiyaasha ee beesha Ciise Weyni hadda se xaaladdu ma sahlano ciidamada Somaliland laftigooda waxay markaasi ay doonayaan inay dib uga gurtaan maadaama xaaladdu ay sida ay u maleynayeen mooyee si kale isku bedeshay diyaaradaha dagaal ee dawladda Djibouti hawada kore ee dagaalka ama goobta ka socdo ee Sheedheer ayaana lagu arkayaa iyo Samatariyare qayb ka midana waxa markaasi ka muuqanaya diyaaradahan dagaalka haddii ay isku dayaan Somaliland in ciidamadooda ay markaasi qaybtooda xitaa dagaalka isku dayaan inay ku biiraan ay noqon doonto in ay mid ay ka shalaayaan noqoto diyaaradahan dagaalka ee dawladda Djibouti ayaana markaasi laga cabsi qabaa inay duqeymo ay ka geystaan fariisimo la sheegay inay ku sugan yihiin ciidanka Somaliland inkastoo wali aan si rasmi ah loo xaqiijinin halka sida ay markaasi wax uga dhici karaan iyo haddii ay markaasi naqan lahayd in diyaaradaha dagaal ee dawladda markaasi Djibouti ay duqeymo ay halkaasi ka geysan karaan xaaladdu waa allow sahal mar haddii laga guuleystay beelaha Gadabursi xaaladdu way si adkaanaysaa ciidamada Somaliland waxa ay markaas u babaxsanayaan sidii dagaalkan qayb ay uga soo noqon lahaayeen oo ay beesha Ciise wala dagaalami lahaayeen balse beesha Ciise hore u sheegtay in dagaal islaamiyiin aysan noqon doonin mid laga laaban doono ilaa oo ay markaasi qasaarooyin waaweyn ay geystaan mooyaane dhanka kalena haddii aan fiiriyana maamulka Koonfur Galbeed hogaamiyooda Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa qorsheynaya sidii doorasho uu deegaankiisa uga hirgelin lahaa qaasatan magaalada Baydhabo walow magaalooyin waaweyn waa markaasi iyo tuulooyin iyo deegaanaba ay maamulka Koonfur Galbeed laheedba qayb ka mid ah ay ku sugan yihiin ciidamada dawladda iyo kuwa maaragtay badbaadada maamulka Koonfur Galbeed la magac baxay Cabdicasiis Laftagareen ayaa ku adkeysanaya in doorasho uu aadayo maadaama Jubbaland iyo Puntland ay gabi ahaanba waqti hore ay dagaal la galeen dawladda iyagoona ay sida ay muuqato Xasan Sheekh Maxamuud ay kaga adkaadeen hadda se Laftagareen ayay sheekadaysataa isna waxa uu markan giijinaya sidii uga adkaan lahaa Xasan Sheekh Maxamuud oo xaaladda hadda waxa ay noqotay in warqad uu soo saaro warqad la mid ah loo saaro sidoo kale deegaanada ayuuna markaas sheegay Laftagareen in doorasho uu gelin doono ama uu aadi doono xaaladda Koonfur Galbeed maalmihii dambe waxa ay noqotay mid aanan markaasi sida heerkii lagu yiqiinay aysan ahayn dagaalo iyo waliba soo kale dadka ka soo jeeda xitaa dawladdu xilka ka ay oo taageerada u muujiyay waxa ay noqotay in xilka laga qaado Taliishub ayaa ahaa ninkii ugu dambeeyay Koonfur Galbeed ka soo jeeda haddana arimahaasi faraha la galo ama markaasi taageero weyn u muujiyo maamulka Koonfur Galbeed daawada ma kula tahay inuu doorasho qof codadkii waa doorasho uu sii qabsan karo walow weli ay deegaanadiisu ay dagaal ay ku jiraan daawada haddii dalkan la soo garto xataa qof walba wanaagsan waxsan hadda kaaga codsanaya inaad kanalkan soo follow gareysid ama soo subscribe muuqaalkan la gareysiin shirkadda saxibada looda ugu meesin daawashada muuqaalkan meesadeen